بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام وفدي بلارن ولا صعدة مدحوينها وزيرة حلبانة سياسيين تي مسؤولين تكبرن لما حلنا سودو هذا مدحوينها سودو هذه وفدي جاك أنا وفر حسن هاي وإن كان قلنا inaad noo timaadeen la isugu yimid shirkii wada tashiga dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka dhacay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb shirkaas oo aan rajaynayno inay ka soo bixi doonaan wax aayaha Soomaaliya u fiican waqtiga iyo xaaladda hadda lagu jiro oo dalku marayana ku aadan aan tashigiisina hadda uu halkaan ka furmay waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo wafdigaagu ku soo dhawaada Galmudug ku soo dhawaada caasimadii Dhuusamareeb waxaan leenahay maansho wanaagsan soo dhawaada shirkan wada tashiga Soomaaliya wax badan bay ka sugaysaa ama ay ka rajeynaysaa in inta laga rajeynayo laga helo ama ay ka soo baxdana waa rajeynaynaa waxaanan ku kalsooni badan ku qabnaa dadaal badan ku bixinaynaa in low aysan rajada iyo waxa dhagaha iyo qalbiga ummadda Soomaaliyeed u fiican inay ka soo baxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay madaxweyne adiga wafdigaagu ku soo dhawaada gurigiinii ku soo dhawaada deegaankiinii ku soo dhawaada dadkiinii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo marka hore salaan kadib assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer Galmudug gaar ahaan reer Dhuusamareeb soo dhaweynta aada iyo aada oo qiimaha badneed inay soo dhaweeyeen anigii waftigii ila socday oo aan isleeyahay waxay ahayd waqti munaasaba xilli roobna da-ay qabowna uu jiro waan ka cudur daaranaynaa soo daahistaan soo daahnay iyo dadka inta badan garoonka joogay culaysku ku dhacay taa madaxweynuhu adiga wafti adiyo martidaada golaha wasiirada iyo xildhibaanadaada iyo dadka reer Galmudug gaar ahaan reer Dhuusamareeb waan idinka mahad celinaynaa soo dhaweyntii aada u kulleyd ee qiimaha iyo qadarinta lahayd ficlan waxaan dareemaynaa inaan guriganagii oo maanta aan isleeyahay reer Galmudug iyo dowladda cusub ee Galmudug laga soo doortay ee ka dhisan hadda ee xarunteedii sida fiican ugu shaqaynaysaay waxay nasiib maanta u heleen shirkaani inuu ku soo hagaaga xilligan oo Dhuusamareeb uu ku dhaco iyaga marti loogu noqdo wuxuu noqonayaa shir taariikhda gelay waxaad xusuusanaysaan xilligii garoowan iyo garoowatu iyo shirar la odhan jirayo waqtiyo adag oo kala guuraha Soomaaliya maanta xaaladday ku jirta waan iska garanaynaa waqti iska yara adag waddan walibana markuu xaaladda doorasho usoo dhowaado waxaa iska bilowda karays siyaasadeed iyo waxbaa taagtaagma laakiin maanta Soomaalidu waxay aada u soo wada fiirinayaan Dhuusamareeb war laguma shiri jirin meelihii la tegi jiray mayna ahayn talow waxaa ka soo bixi doona oo wanaag badan iyo laga rajeynaya weliba inay wax fiican ummaddu dhagaheeda u waxaysan yihiin oo Soomaalinimada iyo Soomaalidaba u fiican way idiin tahay idinkana wax fursad iyo taariikha inaad maanta shirkaa marti gelisaan oo dowlad goboleedyada intay isugu yimaadaan maanta idinkoo weliba waqtigiinuna hadda cusbaa xaaladaad ku jirtaan iyo socod iyo madaxweynuhuna howlo badan hadda ku jiray iyagaan ururin lagu jiray inaad isa soo xilqaantaan ood kulli intaad soo ururisaan culayskaasi oo idinku dhaco waxaa ka dhalan doonaa ka fiican aad baan taas idinkaga mahad celinayna waan rajeynayaa siduu walaalkay sheegay Axmed shirkaan ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyadu ma aha shir dhib iyo shar iyo muddo midna ka shaqeynaya waa shir dastuurina ah xaggan haddii la fiiriyo ay xaq u leeyihiin inay shiraan ta labaadna ay yihiin odayaal mas-uuliyadda waddanku ay saaran tahay oo
bal in la tashado oo laga tashado xaaladda waddanku maraya iyo maxaan horay tallaabo u qaadnaa. waana rajaynaya insha allahu shirkaasi markuu furmo dadka soo fiirinaya Soomaalidu dareenkay qabto inaanan riyadooda beeninaynin wanaagga ay ka filayaan inuu ka soo bixi doono haddii ilaahay yidhaahdo. aad baad u mahadsantihiin. waxaan u malaynayaa war wuu dambeeyaayo war markii wax la is yihahdaa wax lasoo sheegi doonaa, laakiin inaan idinka mahad celiyo inta yada joogteen iyo dhismaha durba aad madaxtooyadii dhisteen tallaabooyinka hore u qaadeen. aad baan idinkuna ducaynayna idinkuna hambalyeynayna shaqada fiican aad haysaan. waad mahadsantihiin.